السلام عليكم أصحابتا qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Memo Cooking and Sweets. waa walaashiin Memo oo idin wada muuqaal cusub iyo malaay aad iyo aad u macaan badan. fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe isaar, haddii aad horey noola joogtayna soo dhawow mar kale. qaybta commentiga ha laga arko, share iyo like ha hilmaamin, waayo like waxay ka caawinaysaa inuu dad badan gaaro. haddii aad wax arah ah qabto qaybta hoose ee fariimaha igu soo reeb. aad iyo aad u mahadsan tahay asxaabta qaaliga. sida u jeegtaanba waxaa idin wadaa malaay aad iyo aad u qurux badan. sida u jeedaan waa malaay gaduudan. waxyaabihii aan ka sameeyay iyo qaabka aan u sameeyay waan idin soo bandhigi doonaa. hubaal haddii aad sidaan oo kale malaay u samaysato wuxuu kugu soo baxayaa sida dooro oo kale oo chickenka oo aad iyo aad u dhadhan wanaagsan, aad iyo aadna u qurux badan. kolley aniga waan soo diyaariyay, run ahaantii waana ka helay. qaabkana waan jeclaa inaan u diyaarsado. adigana haddii aad ka hesho sidaan oo kale ood u diyaarsan kartaa malaayga. waa markii la dubaayo malaayga guduud inuu kugu soo baxo kale haddii aad xiiseynayso. waxyaabo badan waxaa jiro lagu daro, lagu qurxiyo iyo qaabka dubitaanka. halkan ka daawo. halkan waxaa iigu diyaarsan nus kiilo malaay ah, malaayga weliba dalkeena ah ee sida u jeedaanba asxaabta qaaliga. halkan sidoo kale waxaa iigu diyaarsan xabad ukun ah, waan soo diyaariyay. ukunta waxay iga caawinaysaa in uu soft noqdo malaaygayga uuna qurux badnaado. halkan waxaan ku darayaa shiishiid u dhigma qaando shiishiid ah. shiishiidka waxay iga caawinayaa in malaaygayga uu qurux badnaado uuna dhadhan wanaagsanaado. haddii aad rabto shiishiid waad iska dhaafi kartaa, waxaa ku darsan kartaa jacfaraan oo ama nooca cuntada kalarka lagu darsado adig oo midabkiisa jaalo ka dhigan karo. haddaba haddii aad adigu aad jeceshahay waaye, laakiin aniga waxaan doorbiday inaan ku darsado shiishiidka si uu guduud iigu noqdo. sidoo kale waxaa ku darayaa qaando oo bariis maceey ah iyo chicken masala oo ah nooca lagu daro malaayga iyo doorada. wuu kulul yahay, wuxuu iga caawinayaa in uu kuleel yar iisiyo. haddaad doonto waa iska dayn kartaa. wax yar oo cusba ah ayaan ku daraa, cusbada nooca shiidan ama tuman. wax yar oo ayadana qaanda haafkeeda filfil ayaan ku darayaa si uu kuleelka iigu siiyo, iyo qaando buuxda oo ah xawaajiga nooca duban oo xawaajiga dalkeena ah. sidoo kale waxaan ku darayaa basal yar oo ii diyaarsan oo jarjaran iyo 2 xabo tuun ah oo aydan ii jarjaran. sidoo kale haddii aad rabto waa shiidi kartaa ama waa tuumi kartaa labadoodaba. waa kaa marka waa ku daray. basasha iyo tuunta waxay ii siinayaan caraf in uu carafoonaado waxyaabahan aan ka sameynayo oo aan rabo inaan ku darsado malaaygayga. labadoodaba dhadhan wanaagsanna waa ii siinayaan, muhiimna way yihiin. waxaa kaloo ku daraysaa 3 qaando oo bur ah. burkana waxau ka dhigayaa in uu ku yara adkeeyo malaaygaaga si uu ugu ekaado dooro duban ama chicken duban sida u taqaanidba. waa kan waan qasayaa ukuntii iyo waxyaabihii aan soo diyaarsaday iyo burkii ayaan isku qasayaa. wax yar oo biyo ah ayaan ku darayaa si aan saaid ugu qaso. waa u jeedaan oo isku dhexgalo ayaan rabaa, muhiimadeeda intaas waayay. haddii aan qaso kadibna waxaan rabaa in aan markii aan si fiican isku dhexgeliyo in aan malaaygii ku dhex rido oo aan dhexgelgeliyo si qudaarta iyo waxyaabahan aan diyaariyay ee burka iyo isla qabsadaan oo malaaygeeni uu noqdo mid degan. waa ka marka asxaabta qasitaankan waxaa loo baahan yahay zaaid isku dhexgeliyo. loo baahan yahay ma loo baahno in waxyaabaha aad diyaarsatay ee noqdaan kuwa aanan qasnaynin oo waxay ka noqonayaan hadhoodii misdhexgalayaan. markii aad rabto inaad wax ku darsato malaayga oo kale qaab daro ayay kaaga noqonayaan. sidaa daraadeed mar walbo wax walbo sameynaysid si fiican u qas. wax walbo ay ahaataba dhanka cunada ama dhanka qudaartaba. sida hadeertaan u jeedaan aniga waan qasay, waan diyaariyay. waxaa kaliya oo ii harsan malaaygeeni. waa kan malaaygeena asagana halkan ayuu inoogu diyaarsan yahay. waan dhexgelinaya oo kaliya mid ayaan u dhexgelinaya si qudaarta oo dhan ay u gaarto oo yacni u zaaid ugu dhex gasho ayaan u baahanahay. waa fahamteen aan filayaa. waa ka ilaa hadda waxaan ku guda jiraa diyaarintii aan diyaarinayay malaaygii waxyaabihii aan rabay inaan korka aan kaga daro oo aan ku gaduudiyo dhadhan ahaana aan ku wanaajiyo. waa ka asxaabta qaaliga sida u jeedaan malaaygeeni ayaan iyo waxyaabihii noo diyaarsanaa ayaan isdhexgelineynaa si uu inoogu soo baxo waxyaabo badan oo qurux badan. mid ayaa loo baahan yahay inay qudaarta ama waxyaabihii carfoonaa aad diyaarsatay ay u dhex gaaraan si hadhoodii markii
markii aad dubto u guduudnaado, markii aad cunaysidna dhadhan ahaan uu u wanaagsanaado, ama markii aad rabto inaad marti aad siiso oo kale. mid xigta chicken masalada waxa uu leeyahay basbaas yar ayuu leeyahay. qofkii u baahan inuu basbaas u yeeshto malaagiis wuu ku darsan karaa. haddii lacala ay marti ku imaanayso oo kale waxaa ku wanaagsan inaad iska daysid, maxaa yeelay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan jecleen waxyaabaha kulul. booskiisana filfil ayaa ku bedelan kartaa. aniga labadaba waan ku darsaday, waxna ma dhibayaan oo waa iska normal oo kuleelkiisa haddii aad iska yareyso qiyaas ahaan wax dhibaato kuma keenayaan. laakiin haddii ay marti ku imaanayso kale filfisha oo kaliya ku darso adiga oo aanan ka badinaynin si waxyaabahaaga isu kaa dheelitirnaadaan. waxyaabaha kale oo haddii aad rabto ku darsan karto waxaa kamid ah sida kabsarta oo kale oo iyadana caraf ku siinayso, sida inaad liin dhanaan ku mirtid oo kale ayadan dhadhan ahaan ku siinayso. haddii waxyaabaha qaar aadan u baahnayn waad ka tagin kartaa sida aniga aan uga tagay oo kale. marka waaka waan soo diyaariyay malaageena. waxyar oo kaliya ayaa inoo haray, sida ujeedaanba waan soo saaray. waxaan rabaa oo kale in aan dhammaantoodaba hal mar aan diyaarsado si markii aan dubayo iigu noqonin in culeys oo aan midba mar aan geliyo oo kale oo aan hore ka dubo. taas waxaan u arkaa inay dhib badan tahay, maxaa yeelay markii aad saliid wax ku dubaysid waxaa loo baahan yahay jawi degan adigoo waxyaabo kale aan gacanta kula jirin oo wixii aad dubaysid ay ku diyaarsan yihiin, waxna aysan kaa dhineenin, si aad isaga ilaaliso saliid aad wax ku dubaysay oo adigna dhibaato aysan kusoo gaarin, wixii aad dubanaysayna ay si qurux badan ay kugu soo baxaan oo jawi degan aad ku dubatidoo kale. marka waa kaa waan soo dhameeyey malaageena inoo diyaarsanaa, kaliya waxaa inoo haray in aan dubano. sida ujeedaan halkan waxaa ii yaalo saxan waxaana ka kor marinayaa tiish si uu u dhuuqo saliidda malaayga. waa kan dabkii oo aan soo gaabiyey, waxaan saaray saliiddii, waxaan ugu talagalay in aan ku sameeyo malaaygeeni. dabka waa inaa iska gaabisaa maadaama wax aad dubaysid uu yahay malaay, waa si uusan kaaga madoobaanin. dabkana iska gaabi mar walbo. sidan oo kale saliideeni waa kan way soo kululaatay, waxaan ku ridanaynaa malaaygeeni. asxaabta qaaliga ah sida ujeedaan waxaan bilaabay inaan dubo malaaygii. waa ujeedaan dabkina wuu ii gaabsan yahay, saliidana ma kugu soo boodeyso haddii dabka aad iska gaabiso. sida ognahayba malaaygan waxaa ku jiro biyo qudraddii aan ka sameynaye, sidaas daraadeed dabka inaad gaabisidna muhiim waaye si adina aad isaga ilaaliso malaayga aad dubaysayna uu ku qurux badnaado, gaduudna uu kugu soo baxo, adigana uuna waxyeelo ku gaarsiinin ama malaaygiina uuna kaa gubanin. sidaas ayaa fiican mar walba. saliidda aan ku dubayo ma badna, waa saliid qiyaas ah. saliidda iska yaray zaaid ha u badinin, maxaa yeelay malaayga wuu dhuuqaya saliidda jismiga inay ka gasho looma baahno, kaliya inaad ku dubatid ayaa loo baahan yahay. uuna ku qurux badnaado uuna ku dubmo malaaygaagii saliidna aysan ku badanin. sidaas daraadeed saliidda waxaa fiican inaad iska yaraysid si adigana malaaygii aad dubaysay uuna kaaga noqon mid saliid badan. sida ujeedaan asxaabta qaaliga ah malaayga mid walba oo hoos kasoo noqdo gaduud waan gidinayaa si dhanka kale uga noqdo guduud, waayo waxaan rabaa labada dhinacba inay isku ekaadaan oo ayna ka kala duwanaanin, biseelna uu noqdo malaaygeena quruxna uu kusoo baxo. hadeerna waa kaa waan wada gediyey, gaduudna waa ay noqdeen. mid mid ayaan rabaa inaan uga saaro. waxba hala yaabina qaandada aan wax ku dubayo waxaan ka ilaalinayaa birtaawada, maxaa yeelay birtaawada waa nan stick, mana rabo inay xagxagatin ay iga gaarto. sidaas daraadeeda ayaa markii aan malaayga gedinayo oo kale si aayar ah aan u sameynaya. waa kaa marka malaaygeennina sida ujeedaan wuxuu noqday gaduud, waxyar ayaa u harsan. aan waxaan jeclaa inaa si adka xoogaa zaaid ah gaduud uga dhigo labadoodaba, ma fahamteen? labada dhinac ayaan ula jeedaa. waa kaa marka wax walba oo aragto oo qurux badnaado waqti ayaa la geliyay, wax aanan waqti la gelinin marna ma qurux badnaadaan. markii aad rabto inaad wax wanaagsan aad soo bandhigto, haddii ahaan lahayd cunno ama waxyaabo kale, waa inaad marka hore waqti gelisaa iyo waa inaad u fikirtaa. waa kaa malaaygeeni aan mid mid uga saarayo. waan idin sheegay qaandadu way yar dhibaysaa, laakiin waxaan ka ilaalinayaa birtaawada, maxaa yeelay birtaawada waa nan stick, mana rabo in wax garafin ah ay iga gaarto ama xagatin ah. sidaa daraadeed ayaan aayar uga saaraya malaayga. markii aan gedinayo aayar aan u gedinaya. hadeerna malaaygeeni waa kaa waxa uu gaaray in laga soo saaro.
waa ka aan kasoo saaraya saxankii tiishka inoo saarnaa ayaan ku dhex ridayaa si saliidda uu uga baxo malaayga. Kadib ayaan tiishka ka saarayaa. Tiishkan waxaa waaye haddii aad ku daahiso oo aad ku qaboojiso malaayga waxaa laga yaabaa inuu kaa qabsado. Marka inta uu yaro kulul ama yaro diiran yahay ka saar tiishka haddii aad rabto oo kale inaad sidaan uga saartid saliidda. Inaa fahantid wax walba oo la sameynayo iyo qaabka loo sameynayo waa intaas uun muhiimadeeda. Adiga ahaantaada waxaan rajeynayaa inaad ka heshay muuqaalkaneeti. Haddii ay jiraan waxyaabo badan oo aad jeclaan lahaydeen in lagu soo kordhiyo ama waxyaabo fikrad ah oo aad ii heesaan xagga hoose igu soo reeba. Waan tixgelinayaa fikradihiina waana ka helaa. Dadka qaar waxyaabaha ay weydiiyaan sida in aan hadalkooda oo kale aan wax ka dhex baxsado. Markii aan cunto karinta bilaabayay channelkayga waxaa jirta inaan qoraal kusoo qori jiray. Marka gabdhaha qaar waxay soo dhaheen cod inoo soo saar, sidaas daraadeed ayaa markii dambena codka kusoo saaray. Waxaa waaye waayo waxay igula taliyeen maadaama dadka qaar af Soomaaliga aqri karin oo iska fiirsanayaan muuqaalka, sidaas daraadeedna ay u fahmaan wax walba oo la sameynayo. Qoraalkana uu noqon karo mid dadka wax bartay ay aqrin karaan ama dadka af Soomaaliga yaqaano. Marka qaybtii koobaad ee malaaygeennina waa ka asxaabey sidaan ayaan ka dhigay ka warama. Aani ahaanteeda gaduud qurux badan ayuu leeyahay. Waxyaabaha kalena waa ka qaybtii ay hartay ayaan hadeerna ku riday waan dubayaa sida u jeedaanba. Saliidana inkastoo ay qaboob tahay haddana waxaa waaye waan u sii yar dheereenayaa. Laakiin marka hore bal aan ku rido malaayga isoo gaarin ma jirto. Jawi degan camal si oo degan ayaan saliid isaga ilaalinayaa. Hadda waa ka uu yar dheereeyay dabka si yacni markii aad dubayo fafaniin iyo waxa saliid aysan soo gaarin. Mar walba taxadarkaaga ha badnaado haddii aad saliid wax ku dubaysid. Waayo saliid waxaa waaye haddii ay xoogaa ay ku soo gaartay xitaa wax yar waxay leedahay dhibaatadeeda ay leedahay inkastoo dab oo dhan uu dhibaatadiisa leeyahay. Waxaa runa asxaabey wax walba markaa sameynaysid haba yaraadaano oo arabto inaa YouTube soo galiso oo kale haddii ahaan la siiba cunto karinta markii muuqaal laga duubayo way dhib badan tahay. Maxaa yeelay waxaa waaye waxaa wax ku sameynaysid waa dabkan waxaa laga yaabaa inuu adiga ku saameeyo. Waa fahamteena umaleena markii idinkana asxaabta qaaliga dhankiina dhiirigelin aan ka helno haddii aan cuno kariyaal yaa marka waa mahadsantihiin. Malaaygeennina waa ka wax yar ayaa u haray inaan dabka ka soo saaro. Sida u jeedaan malaayga dhamaantiisa gaduud ayuu noqday maasha Allah oo qurux badan. Haddii dooro lagu keeno haddii malaaygan lagu keeno labadaba waxaas dhii lahayd kulay waa isku mid muuqaal ahaan markaa korka aragto inkastoo ay ku kala duwan yihiin malaay iyo chicken. Haddana waa ka sidaan haddii aad u samaysatid waxba uma baahnid chicken oo kale. Malaayga mustakafi isaga kaaga filan kaliya qaabka u sameysato ayay ku xiran tahay. Sida hadda u jeedaan oo kaleentooda iyo qaabka adiga uga dhigatid inuu noqdo mid qurux badan. Aniga mar walba waxa ku dadaalay waxay ahayd inaan gaduudiyo oo dabka aan xoogaa ku haayo si yacni malaaygi oo gaduud ahayn aan dabka uga bixinin. Waayo midabka wax walba cuntada midabka muhiim waaye. Markaa sameynaysid cunto oo kale waxaa wanaagsan in qaabka muuqaal ahaan uu ku noqdo mid adiga aad ka baaraan degtay oo aad ogtahay qaabka uu kusoo baxay inta aadan sameynin ka hor. Waa ka marka malaaygeeni dhamaantiisa waan ka gudba sameyntaankiisa sidaan ayuuna kusoo baxay. Ka warama asxaabta qaaliga malaaygeeni waa kana aan soo dubay sidaan ayuu kusoo baxay quruxda badan. Midabkiisana wuxuu noqday guduud. Inuu iga gubtana waan ka ilaaliyay, inuu cerin iga noqdana waan ka ilaaliyay. Muhiimadu waxay tahay markaa wax dubaysid sida siiba malaayga oo kale inaad ogtahay inuu dhaxda ka bisil yahay. Waxaa jiro marka aad sameyso ay leedahay dhaxda uu ka bisil yahay waayo qaabka u sameysa ogtahay. Laakiin iska ilaali wixii aad kor ka qurxisay in dhaxdiin uu cerin ka noqdo. Tusaale ahaan saliida markii aad wax ku dubaysid oo kale inaad dabka u gaabisid si wax ay biseel kugu noqdaan. Mar walbana waan ku soo celceliyaa dabka iska gaabi marka aad wax rabto inaad dubto ama dhexdhexaad ka dhigo. Laakiin iska ilaali in uu noqdo dab zaid ah. Aad u mahadsantiin. Subscribe